السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن دمانتين بدا وديال مeel walba oo ay joogtaan halkani waa Somali Freedom aniguna waa Aydulus Iimaan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo ku saabsan taxanaha sheekooyinka ku saabsan dunida oo maalin walba aanu dabcan xulasho gaar ah iyo mowduuc mudnaan gooni ah aanu soo qaadano sida aynu ognahay dunida iyo dhaqaaluhu waa waxa jaangooya jiritaanka iyo sidoo kale halbeegyada nololeed ee bini aadamka dhaqaaluhu waa la ogyahay isha ugu muhiimsan ee dunida kala hagta jaangooysa waxaana dhaqaale jiritaankiisa lagu halbeegaa inuu ku xiran yahay helitaanka xasilooni siyaasadeed taas ayaana ah ubuucda kaliya ee uu ka soo burqan karo dhaqaale dalka iyo dunida oo dhan wax ku soo kordhiya sida aynu ognahay dunida maanta iyo qarnigan 21aadba waxyaabaha lagu baratamaya waxaa ka mid ah dhismaha iyo hirgelinta goobo ilqabad leh ama hoteelo ama meelo dalxiis iyo sidoo kale xarumo kale oo muhiim ah waxaynu soo qaadan doonaa hoteelka dunida ugu weyn maalinba sanad walba iyo bil kastaba waxaa xariga laga jaraa xarun gaar ah oo ganacsiga la xiriirta waxaanu soo qaadan doonaa muuqaalka iyagana uu ku saabsan yahay hoteelka dunida ugu weyn waxaa ku jirta dhismahan xog daahsoon oo aanu soo gudbin doono qolalka dhaqaalaha ku baxay cidda maalgelisay halka uu ku yaalo iyo meelo kale oo muhiim ah ku soo dhawaada muuqaalkeena markale kulan wacan dhamaantiin bada wadiyaal halkani waa Somali Freedom soo dhawaada muuqaalka iyaga hordhiciisa aad daawateen ayaan gudagali doonaa aynu ku bilaabno hoteelka ugu weyn adduunka waxa uu ku yaalaa Sacuudiga waxaana lagu magacaabaa Abraj Kudai waxa uu ka kooban yahay dhismayaal kala duwan oo cajiib ah hadda aan ku bilaabno qolalka waa 10,000 oo qolal ayuu ka kooban yahay sidoo kale waxa uu leeyahay 4 goobood oo gaar ah oo loo asteeyay in diyaaradaha qumaatiga u kacay helicopterka loo yaqaano inay caga dhigtaan si la mid ah waxa uu dabcan leeyahay in halkii marba uu marti gelin karo 30,000 oo dad ah oo marti ah waa dhismo cajiib ah oo ka turjumaysa in loogu talagalay in mar qura uu dad intaas la eg tiradooda uu qaadi karayo inuu 10,000 oo qol uu ka kooban yahay 30,000 oo marti aan u qaabili karo waxa ku tusinaya muuqaalka dhismaha oo aad arki karto heerka uu la eg yahay dhismaha oo cajiibka ah sidoo kale waxyaabaha kale ee ku jira waxa kamid ah inuu leeyahay 70 goobood oo maqaayado ah oo cunooyin kala duwan oo kala jaad ah loo asteeyay dadkana dabcan ay ka heli karaan guud ahaan 12 dhisme ayuu ka kooban yahay dhismahan dunida casriga ah taajka taariikhda u haya haatan sidoo kale inta la wariyay xogta ku jirta waxa kamid ah inuu ka kooban yahay 45 dabaq oo lagu jaangooyay dhismaha hoteelkan waxa uu ku yaalaa magaalada Maka ee dalka Sacuudi Arabiya qorshaha Sacuudiga waa inuu noqdaa il dhaqaale xarun dalxiis iyo madal dunidu ay u soo damaashaad iyo dalxiis tagto waana qorshaha aragtida ninka haatan dhaxal sugaha boqortooyada ah Maxamed bin Salman oo iminka iska gadaya kasbashada dalalka reer galbeedka si uu Sacuudiga siyaasadiisa xirxirneed u furfuro sidoo kalena uu la yimaado aragti iyo hindise cusub oo hogaamintiisa iyo dunidaba isku jaangooyin kara dhulka uu ku fadhiyo dhismahan waxa lagu sheegay 1.4 milyan mitir murabbac ah sida ay dabcan dad xog ogaal ah oo ka faalooday ay xaqiijiyeen sida uu qorshuhu ahaa waxa la furi rabay 2015 laakiin arrimo dhaqaale awgeed ayuu dib uga dhacay filashadii furitaanka xilligaas laakiin waxa dib xariga looga jaray sanadihii 2019 ilaa 2020 dhacdooyinka kale ee dhismahan ku gadaaman waxa kamid ah 12 dhisme uu ka kooban yahay dhismahan 10 kamid ah habeenkii waxa lagu seexan karaa 4,000 oo dollar halka labada dhisme ee kale iyagana loo qorsheeyay in lagu seexdo habeenkii dabcan dhaqaale gaar ah oo la xaqiijiyay in uu la eg yahay 5,250 dollar 5 qol oo kamid ah 10,000 ee qolal waxa loo gaar yeelay oo loo asteeyay in ay degi karaan qoyska boqortooyada Sacuudiga sababtoo ah si gaar ah ayaa loo hagaajiyay loo bidhaamiyay loona qurxiyay waana dhismayaal ka duwan 5 qol oo qoyska boqortooyada loogu gaarka yeelay in iyagu deegaan iyo dalxiis iyo sidoo kale waqti ku qaadashaba ka dhigtaan cadadka lacageed ee dhismahan muuqa halaasiga ku dahaaran ku baxday waxa lagu sheegay 3.5 bilyan
waxaad ka garan kartaa dhismaha quruxda leh iyo cabirka dhulka uu ku fadhiyo iyo qolalka uu ka kooban yahay. Lacagta ayaa jaangoysay sababtoo ah lacag badan ayaa loo qorsheeyay in la geliyo si uu u noqdo dhismaha hoteelka dunida ugu weyn. Sacuudiga ayaana iminka diyaar u ah inay dunida tusaale dalxiiseed iyo xarumo ganacsi oo waaweyn ka furto. Inkastoo nidaamka Sacuudiga ee Islaamiga ah ay dadku rumaysan yihiin in wax badan uu markii horeba halbeeg u ahaa, laakiin nidaamka hogaamineed ee ninka dhalinyarada ah Mohammed bin Salman ee reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka wax ku soo bartay ayaa la yimid hindise u gaara iyo halabuur u gooni ah. Inkastoo xukunka weli uu ku fadhiyo aabihii boqor Salmaan, haddana hogaaminta isaga ayaa carcar iyo sidoo kale caaboonaan badan u qaba. Waxa uu rabaa da'diisa oo yar, hindisihiisa oo cusub iyo in uu dunida kasbanaya iminka uu dhaxal sugan yahay inuu wax badan jaangooyo. Muuqaalka iyagii xiisaha badnaa ayaan halkan kusoo gabagabaynaynaa oo ku saabsanaa dhismaha hoteelka dunida ugu weyn oo iminka laga dhisayo Sacuudiga, haatanna la soo gabagabeeyay. Muuqaalo kale oo xiiso badan oo ku saabsan sire iyo xogo daasoon iyo sooyaal dabcan taariikheed ayaanu goor kasta idiin soo gudbin doonaa. Daawadayaal, la wadaaga saaxiibada kale. Fuaad Cabdirasaaq Gurey ayaan uga mahad celinayaa muuqaal duubistan. Annagoo wada jirna isma dhaafno. Nabadiino.